العليا ودعاة الرحمة للدنيا سفراء للحب نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا نتألق خيرا وسخاء نتوهج خلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبت أفراد برنامج كيني ليبانتا جوكا وولي شيخنا وحان سيودنا وشكرا سيا سؤال شمان تعرفنا كويدي وحيتا هاي سؤالها أيا وناكسن قفك إن ويديو قبل إن ويدي سو ويلك إنت أيسان يسكوسن كو. الحمد لله. رنتي أنا مسكح هذا وحكبه حي سؤال أذفر رمضان. waxaa isleeyahay su'aalaha aadka ugu muhiimka waxa weeyaan qaabka mas'uuliyadda loo xumbaarayo ama qaabka lamaanuhu labadoodaba mas'uuliyadda noloshu waa mas'uuliyade qaabka noloshu u wadaagi lahaayeen mas'uuliyaddana ay u qaadi lahaayeen haddii uu khilaaf yimaado qaabka ay labadaaba uga bixi lahaayeen oo bar amaan uga bixi lahaayeen qofku haddii intuu bad galo وبدأ كوكر قوما وإنه كفكرة وحو قبصده يجيد وقبصده إنه سيدو أبح لها وإنه كفكرة. لبضع قضبرت لبضع قضب أساس أبقى مقاطع قضب كمسؤولية ده هي قضب كلبض وأحد نبي بعد أما خلاف يماده خلاف كويح لجاب بحلا لكن مسألة الخلاف كإيه أقلوا مركوا لنا لبضع قضب وكلا قدره أنده وحاول أن تنسيده كين أذا جوض حلان وح خلاف كيني كرا ذات ذيس وحنا خلاف كبعد عاي سيل لوجا بحاوية عذر كبا يبيد سيد والله هلاوية وحنا والوقاية خير من العلاج شكاتك وحن أقبه وحن شكا ما تغنى أقبه إسكاشة أقبه قبوا بس كيل لنا يا مركب هرب حنون كان يعذر كان خلاف كان حاجات إيمان كرا لنعكس وجلي كرا سيدان مركب هرب الباب كأحد كرا قضب كسبحان كأنه هي قضب هذه يعني قضب مهمة هاي شو محاك لو سؤالك لما جت أخفك وناكسين وديتو سنقول وأركتي ذا نلشة إن لجوا الله hadday noqon lahayd qaab qoraal ah iyo hadday noqon lahayd intoos la isu weydiiyaba qofka waxa uu nolosha uu doonayo uu ku riyoonayo ama qaab nololeed dadku isku dabeeca maaha dadku iyagoo wanaagsan bayna haddana mutataabiq isku ahayn marka in nolosha la isla fahmo wax alla wixii in nolosha la isla fahmo keenaya مثلا هذا نinku markuu gabadhiisa lamaanaha uu gabadhii nolosha uu la wadaagi lahaa uu baranayo wuxuu kala hadli karaa مثلا qawaamadii iyo xuquuqda isaga uu lahaa ayuu gabadhii kala hadli karaa diiniyan iyaduna sidoo kale waxyaabaha dabeecooyin qaar ay jirto oo kale ay isna ay kala hadli kartaa saasay marka isku baran karaan waxaan runtii fiiro gaar ah mudan iyo inaan farta ku fiiqo meesha adduunka la jooga adduunyadu dhameystir mar alkamaalu lillahi wahda isu gaadhay gabadha tiraba meel baa go'aan bay Soomaalidu tiraahdaa marka qofka markuu qof raadinayo oo ama uu su'aalo weydiinayo ama uu baranayo inuusan isku dayin inuu helo qof 100% saliim ah 100% saliim oo fiyow oo malaa'ig ah inuusan qofka uusan isku dayinayo qofkan hadduu nolosha isla fahmayaan in ka badan 100% waxa weeye dhanka kale ay noqonaysaa marka in waxyaabihii nolosha iyo liibaanta qoyska wax alla wixii saameyn ku leh inay labada qof ay ka wada hadlaan way inta aan waliba aqdigu dhicin gabdhuhu waliba gaar ahaan gabdhaha waxaan u sheegayaa chance bay haystaan inay kala hadlaan ragga ay guursanayaan inta aysan aqdigu dhicin mar aqdiga hadduu dhaco waajibaad iyo xuquuq baa ratimay si fiican sheekhana halka ugu wanaagsan labada qof inay isku shukaansadaan horta dhulka Ilaahay waa balaaray sida ugu qiimaha badan ee ugu fiican ee ugu wanaagsan horta waxa weeye gabadhuna ay ku dareemayso xurmad iyo xushmad ay ku dareemayso ninka laftiisa inuu qof mas'uul oo qaali ah oo maxaa la yiraahdaa iikeen uu helayo uu dareemayo waa gabadhu in ay gurigeeda ay wiilka ku wada hadlaan مثلا haddii intii fadhiga labada loo baneeyo albaabada la furo wiilkiga gabadhu ay kaga wada hadlaan guriga dhexdiisa aragtideeda waa cizo waa sharaf wax wanaagsan haddii taa laga soo tago meel public oo yaani sida meelaha librariyada wax lagu aqristo iyo wixii la mid ah inay mataqaana labada qof qaarkood kaga wada hadlaan waa wax meesh ku jiri kara laakiin marna waxaan ayadu adag aan suurtagal ahayn naxiye diiniyana u adag hadhowtana akhlaaqiyadkeeda iyo shakigeeda reerka dib ugu soo noqon doontaa inay labada qof ay khalwo isla galaan ama gooni isla noqdaan taas oo wixii ka imaan doona ay saameynayso carada alla markii laga soo tago kadib ay saameynayso xataa noloshooda
mustaqbalka dambe. si fiican sheekhana maxaad nasiixa aad siin lahayd nimanka gabdho badan la sheekaysanaya ama shukaansanaya ama sidoo kale gabdhaha nimanka badan la sheekaysanaya shukaansanaya intaysan guursan koo niman badan hal moos ku dhex wado diinteennu waa diin wax walba ka hadashay diinta ka hadashay sida loo galo cazakumullah musqusha ma u malaynaysaa inayna ka hadlin qaabka loo wada hadlayo qaabka guri iyo lamaana loo yegalay inayna ka wada hadlin laa shaka fi dalik way ka hadashay marka waa in qofku uu ogaadaa horta inuu imtixaan ku socdo inuu miisaan saaran yahay inay dadku shuhadaa ullahi fii ardi inay yihiin ninka dhallinyarada ah ee gabdhaha islaamka oo dhan wada raaf goynaya ee isu wada maraya ee tan ku fiiri tan ku fiiri tan ku fiiri tan ku fiiri ee hadhow markii la weydiiyena kule waa iska shukaansanaya waa iskala baashaalayay ninkan waxaan ugu naseexaynayaa inuu ogaado gabdhaha inay gabdho walaalihiisoo kale inay yihiin habaryarihiisoo kale inay yihiin eedooyinkii hooyooyinkii oo kale inay yihiin inuu laga yaabo inuu gabadhan waxaan uu ku samaynayo berri walaalkii inuu guursado gabadheedii inuu wiilkiisa inuu berri guursada laga yaabaa marka mujtamacu waa mujtamac la doonayo inuu nin walba dhankiisa ka ilaaliyo midda kale raganimo ma aha ninka waxaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuu diiday in yani matalan gabadh nin walaalkaa ah gabadh u doonan ama gabar uu maartay rajo kale yahay in aad ku falisto waxaa ka dhimanaya mujtamacii marka inuu isku hodo inuu isu cadhoodo inuu qalbiga wax isugu qabto ayaa ka imanaysa waxaan ku darnaa masalada ma in laga fiirinayo naaxiya sharciya mise in laga eegayo xagga waaqica sheekhu wuxuu xoog aad u saaray xagga waaqica runtii fasahaadka ee ka imaanaya iyo dulmiga gabdhaha laga gelay laakiin naaxiya sharciya marka laga eego naaxiya fiqiya marka laga eegaayo ayadoo dawaabiteeda ay la socotahay way bannaan tahay haweenayda inay 2 nin ama 3 nin hal mar wada shukaansato cajiib lidaalika soo hinda ma ahayn gabadhii u timid nabiga sallallahu alayhi wasallam ee tiri waxa ay shukaansaday hebel waxa ay shukaansaday hebel waxa ay shukaansaday hebel saddexda keen guursada oo marka nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam hebel ha guursanin dumarku laayaa oo dila hebel ha guursanin waa bakhiil waxaan ku dhihi lahaa hebel guurs marka haddii arinta dawaabiteeda ay leedahay hal mar bay culimadu aad uga hadlaan hadduu qofku uu qof u leexdo مثلا قبل بعض صدق ويل شو كان سليسي أما إسكو شو كان سليسي أما ساسو كله أما قويل بقى هدو ميت كم إذا قل يحضر قلبي يسوب بقول كي بالتضباط نقول لي عياي أنت كلا خيانة وقوة ضايع مركوين وأنت كلا جوجيا لكن أنتوا سجوان جارين أو قبلنا بارة يتنا بارة يو حصيلة يو وح قصة بحنا مركز أكو جارياي وحيلتها هاي ولا بدو يكهذا أرتاح وحدات صح هذا مركز لو كهل لي جورك يو أنا ما يقبل بعض مرة سكوش خاصة ما يحل مرة يعني حل مرة واحدة هذا تشكر سنة يا تشكر سنة تشكر سنة أنا وح موت حوي ست ما قرن كرا ما